Mustafa Cagjar iyo golihiisa kabinega ayaa la sheegayaa inuu walwal iyo walaahow siyaasadeed oo meelna qabanwaac ah uu soo food saaray kadib markay ciidamada mayalka iyo mowqifka adag ee Tigreegu jebiyeen milatariga Itoobiya. ciidamadii isbahaysiga deegaanada iyo maleeshiyaadkii Axmaarada oo ay degmooyin ka mid ah deegaanada Axmaarada iyo Canfarta gacanta ku dhigeen, isla markaana ay la wareegeen gacan ku haynta jidka halbowlaha ah ee isku xidha Itoobiya iyo Jabuuti ee ay wax walba u soo maraan Itoobiya, kaasoo toddobaadkanba go'an. ciidamada difaaca Tigreega ayaa ka dhex adeeganaya gudaha deegaanka Canfarta oo ay 4 degmo gacanta ku hayaan. shacabka Canfartuna si weyn ugu soo dhaweeyeen oo taageero xoogan u muujiyeen iyo inay Tigreeg iyo Canfar walaalo yihiin, halgankooda taabacsan yihiin oo aysan marnaba ogolayn dhergi iyo wax u egtoona, iyagoo cambaareeyey xisbiga BB ee Abiy, cadeeyeyna inay mar walba federalismka qowmiga ah iyo cidda u halgamaysa ay la jiraan. waxaana xusid mudan inay jamhadii Canfartu raacday ciidamada difaaca Tigreega ee TDF oo ay ka garab dagaalamayaan, isla markaana uu madaxweynihii deegaanka Canfarta Awal Arba uu toddobaadkan gudihiisa ka cararay xarunta deegaankiisa ee Samara oo uu lug kaga baxay una jihaysay dhanka Addis Ababa, maadaama diyaaradihii laga joojiyey deegaankaasi. cabsi badanna ay soo wajahday inay ciidamada difaaca Tigreegu ugu yimaadaan qasrigiisa caasimada Samara oo ay qafaasha. Mustafa Cagjar wuxuu hadda u jihaysanayaa hanti urursigii ugu dambeeyey. wuxuu akoomada ku shubtay miisaaniyadii 2013 ka soo hadhay oo idil. wuxuu bixiyey carruurtiisii iyo xaasaskiisii oo uu qandaraas ku siiyey Khadar Jire. Maxamed Cagjar ayuu ku amray inuu dhaqdhaqii ugu dambeeyey ka soo ururiyo mikrofinansiga deegaanka. walaashii Farxaan Cagjar iyo ninkeeda iyo duqii Cagjarha intaba uu diyaariyey, waxaana u dhiman oo keliya dhaqaaqi. golaha kabinega ee deegaanka ayaa la mid ah oo nin walba uu diyaar garoobay, carruurta iyo xaasaskiina la wada dir. iyagana boorsooyinku waa u xidhxidhan yihiin, wayna ka rajad dhigeen sii joogitaan oo way uga beeshay, maadaama ay arkaan in Abiy iyo xisbigiisii BB ay afka ciidda la sii galayaan. maalmihii ugu walbahaarka iyo walaaca badnaa ayuu Mustafa Cagjar ku jira oo dhinacna uu dhici laayahay inuu cararo uu rabaa, laakiin Abiy oon baxsanin isagu isma dhaqaajin karo. Mustafa Cagjar jiif iyo joogba waa kaba la'yahay, hurdo ma seexdo ma nasto. xataa waxaa naloo sheegay in habeenkii saacadaha dambe jaad loogu doono dhankaas iyo magaalada Harar. dhanka kale ciidamada difaaca Tigreega ayaa dardar xoogan wada, waxayna ka dagaalamayaan 3 jiho: dhanka Canfarta, dhanka Walqayd iyo gudaha deegaanka Axmaarada, iyagoo xalay oo ugu dambeysay qabsaday magaalada Qodbo, Waldiya iyo Abi Arkay, kuna sii wajahan dhinaca Gondar, lagana yaabo inay maalmahan gudahooda Addis Ababa ka soo cabaan. waxaa kaloo ay ciidamada difaaca Tigreegu ka qabteen ciidamadii Oromada ee la soo lugooyey oo ku dhowaad 4,000 gaadhaya, iyagoo soo bandhigay warbaahinta. waxayna u egyihiin niman aan hadda la loodin karin, awood ismartaagtana aysan jirin. waxaa kaloo ay wararka qaarkood sheegayaan inay ciidamadii ilaalada Abiy ee kumaandooska ahaa oo ah lugtii ugu dambeysay oo uu Abiy u diray ay iyagana in ka badan 1,000 ka qabteen, halka qaybo badanna ay isdhiibeen. waxaa hadhay waa toddobaadkan gudihiisa iyo Addis Ababa.